السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha Soomaaliyeed meel kastoo aad joogtaan iyo waqti kastoo idin tahay waan salaamaya walaashina xisaabta doon maantay waxa weeyaan maadaama update badan uusan jirinin qodobo yaryar oo muhiim ah oo tahay dhammaantii inaan ogaano ayaa insha allahu tacaala idinla wadaagaya sidaad ogeydeenba arbacadii lasoo dhaafay hadda oo daraad ahayd normally CEO-gan uu imaan jiray 360ga marka wiigaas ma uusan imaanin warbixino badan ayaa jiray oo maaragtay soo kordhayey marka waxaan rabaa insha allahu tacaala intii ugu muhiimsan inaan insha allahu tacaala aan video qaybtaan idinkula sheer gareeyo biidnillaah waxa ugu muhiimsan horta oo ugu horeeya maadaama uu connecti ay ka dhiman tahay hal maalin oo qura ah markii maanta laga reebo oo 30 bisha uu ka dhacaya dadkii kowdii September dadkii gatay kadibna halka bil shirkadu ugu dartay 3 bilood markay ka dhacday halka bil oo freega shirkadu siisay waxay uga egtaa 30 bisha kaasoo ah beritoole dad badana marka walwalaayo waxay leeyihiin oo anigu iga dhacaya maxaan sameynaya ma lacag kalaan bixinaya iyo wixii la mid ah maya sida shirkadda CEO-gan uu ku ballan qaaday hal mar ayaad pocketkaaga ka bixinaysaa lacagta ama hal mar ayaad ma aragtay akoonka adiga jeebkaaga lacag ka soo bixinaysaa marka hadduu dhaco shirkadda ilaa iyo caaway waxaan rajaynaynaa in uu ma aragtay CEO-gu hadli doono ama qoraal la soo dhigi doono kadibna ma aragtay isbeddel imaanayo laakiin adiga waxaad ka warwashid iyo waxaad ka walbahaartaa midnayay jirin maxaa yeelay oo connect waad iibsatay iibsashadaas aad iibsatay ballanaa lagu qaaday inaadan jeebkaaga dambe lacag ka doonaynin CEO-guna wuu ku celceliyey marka waxaad ka walwashaa ma jirto waxaan arkayay gruubo Soomaalidu aad bay u wanaagsan yihiin laakiin gruubo kale waxaan arkayay intaa dhahaya wixii way naga dhacayaan ma haysano wax kale maxaynu yeelaynaa maxaan gobernada ku qabsanaynaa laakiin never ever ma dhacayso oo connect intuu ka expire garoobo ayadoon system kale la keenin ama lagugu darin inay ma dhacayso ama waqti kale uu ina siinaya noogu daraya oo free ah ama maxaa la yiraahdaa new release package ba imaanaya ama maxaa la laakiin adiga marnaba jeebkaaga lacag dambe inta ka soo saartid oo connect kuma subscribe gareyn doontid ama kuma iibsan doontid sidaa daraadeed on passive qaabka loo design gareeyo waxa weeyaan hal mar ayaad jeebka gacanta gelinaysaa wixii ka dambeeyo adiga shaqadaada maaha shirkadda wixii faa'iido kaaga yimaada dad badan baa maanta alxamdulillah faa'iido ka haya oo waxa weeye ecosystemkooda maanta lacagta u dhex taallaa oo ku subscribe garaysan kara laakiin haddaad adiga markaas aadan wax kasta markaas aadan haysanin oo akoonkaaga uu 00 macnaha xagga customerka uu yahay markaas aad ka walwalayso oo connect hadduu berri iga dhaca maxaan suubinayaa absolutely maanta kadib ha ka walwalin ka seexo shirkadda ayaa systemkii soo wada habeenkii ugu dambeysay marka oo connect release ayaa qodobka labaad ah marka dhinacan hadduu kaa dhaco waxa warwar ah ha ka qabin maxaa yeelay shirkadda ayada ayaa noo diyaarisay qaabkii aan uga faa'iidaysan lahayn qaabka kale qaybta kale labaad waxay tahay CEO-geena webinarka ugu dambeeyey ama xilliga ugu dambeysay oo uu hadlay oo uu kasoo qayb galay waxaan filayaa inay ahayd marka uu red iyo Sunday something uu kasoo qayb galay maxaa la dhahaa dabaaldegii adeeg Christmas waxay samaysanayeen red iyo xaaskiisa ay qabteen oo dadku kasoo qayb galayeen ayaa waxaa jirtay mar qodob muhiim ahayd oo ka hadlay qofkii dhageystay oo uu dhahayay oo connected new release ayaan keenaynaa ama qayb cusub ayaynu soo daynaynaa inta aan sanadku dhammaanin okay marka sanadku intu soo dhammaan maanta waa maxaa weeyaan bisha maanta bishu waa 29 berri oo iyo berri dambe adigu 31 bish ku dhamaanaysa marka labada maalmood gudahooda new release ama qayb cusub in la soo fasixi doono oo connect ah ayuu sheegay marka haddii la soo fasaxo haddii markaasay toole aad qof dhaqaala haysta oo markaas commission ama systemka ugu jiro ama yu ugu jirin mar kastaba oo connecti systemkii lagu sii subscribe garaysan lahaa ama lagu sii socon lahaa shirkadda ayaa haysa adiga laakiin haddaad mar kaliya iibsatay
mar dambe jeebkaaga loo noqon maayo oo taas ballanqaad ayaad haysataa sidaas daraaddeed wax warwar ayuu kugu qabanin iska maaragta enjoy garee oo connectina 24 saac soo socda waxaan aaminsanahay in update ka imaanaya shirkadda degdega naloona sheegaya ama new release-ka ama haddii lagu daray maalmo nala siiyey dheeri ah ama haddii ma aragtay qaab kale uu jiro marka kaasay toole new release-kaasna wuu ku dhawaaqay CEO-ga laakiin ma naqaano timeka before end of the year ayuu dhahay marka intaan sanadku dhammaanin maadaama uu yiri anytime ay noqon kartaa hadda ecosystemka iyo systemka meelaha dhan waa soo fiirfiiriyey wax update ah oo cusub maanta ma la soo dhiginin laakiin waxaa rajaynayaa normally CEO-ga hadduu webinarada waaweyn qabanayo jimcada ama sabdida ayuu qaban jiray marka maantana waa jimce berrina waa sabti marka waxaan rajaynaynaa 24 saac iyo 24 saac oo kaleeto in warbixin degdeg ay soo baxdo waana idinla socodsiin doonaa wixii soo kordha waxa kaleeto ugu muhiimsan asiyadana new OES upgrade in maaragta la sameeyey oo waxa weeyaan dadka walaalaha sidaad ogtihiin ombasif waxay leedahay appkaas oo waxa weeye hadda mobile ku shaqaynaya ama hadda mobilka ku shaqaynaya maaragta browserkana insha allah mar dhow imaan doona marka appka waxaa lagu sameeyey upgrade ama cusboonaysiin ayaa lagu sameeyey aad iyo aad buu runtii u qurux badan yahay marka haddii aad kii hore oo old versionka aad isticmaalaysid fadlan waxaan kaa codsanayaa in aad ku dhufato asaga laftirkiisa meesha kore ayuu update kugu soo qorayaa haddaad upgrade ama update whatever uu kugu soo qoro haddii aadan kaas arkinin waxaad isku daydaa in aad asaga dhanba masaxdo ecosystemkaaga aad mar labaad tagto mar labaadna aad soo dhowlad garaysa sababtaa walaalo badan baa dhahaya aniga update ma tusay aniga waxba ma tirtirinin meesha korkeeda sawirkaaga geeskiisa ah ayuu update kugu soo qoraya iyo upgrade wixii ku qornaa labadaa mid ma xasuusto kaasaad ku dhufanaysaa sidaas ayaanad maaragta qaybta cusub ugu gudbaysaa maxaad qaybta cusub ugu tegaysaa runtii isbeddel cajaa'ib ah foomkii dhan ama qaabkii u muuqdoo dhan waa la beddelay awal waxaa jirtay eriyooyinka qaarkood xitaa inaysan fanshin garaynaynin oo yara maaragta upgrade ku socday hadda wixii waa la dhammaystiray haddaad meel walba tagto haddaad invite linki fiiriso haddaad video macnaha xitaa waxaa lagu soo kordhiyey app direct invite inaad dadkii ku samayn karto oo appka aad u maaragta diri kardho qofka oo details faahfaahsan leh oo markaasay tolo code uu qofku isticmaalayaana hoosta kuu yaallo oo adiga kugu linki garaysan oo sidii really professional qoraal ah oo waxa weyn cajaa'ib ah oo aadan indhahaba ka qaadi karinba quruxdiisa runtii markaad fiiriso siduu u qoran yahay waxa uu maaragta siduu u balansan yahay quruxdiisa aad yaabaysid sidaas daraaddeed appkuna waa recommendation inaad qofka la sheer garayso haddii aad doonayso xasuusina numberka hoosta kaga qoran markaasay toole adiga aad linki ahaan kuugu talaalmayo inuu qofku isticmaalo sababto markuu appkii tago oo uu soo dejinayo inuu isticmaalo lambarkaas ayaa maaragta wanaagsan sidoo kaleeto end of maxaa la yidhahdaa o connected sidaan sheegayba ayaan ku jirnaa waxaa jirta maadaama 2 maalin ama maalin iyo bar qura ay ka hartay ama 2 maalin iska dhe ay o connected ka hartay subscriptionka waxaan kula talinayaa in uu ka faa'iidaysto offerka ama ma aragtay offer ayaa jiray oo waxa weeyaan soo socday 1 bisha December ilaa iyo 30 mise 31 ado 31 I hope inuu 30 ku eg yahay marka maadaama 2 maalin oo qura ay ka dhiman tahay offerkaas waxaan kula talinayaa qofkii awooda qasab ma jiro problem ma jiro haddaad awoodid inaad offerkaas ama discountigaas wanaagsan aad ka faa'iidaysato weli chance ayaad haysataa 48 hours ah in aad kaga faa'iidaysato oo waxa weeyaan aad oo connect subscribe garaysto weliba dadka aan xoog ugu sii celcelinaya waxa weeyaan walaalaha founderska ah ma aragta aad ayaga ugu sii jaban yahay oo $93 kaliya uu maanta u yahay markii 48 hourskan uu dhammaado system cusub iyo waddo cusub loo gudbo oo connect new release la aado waxaa laga yaabaa in aadan ku helinin
برايسكان مانتا آدك إيا آدك وشبن marka haddaabad founder tahay oo $93 maanta mustaqbalkaaga aad ku bedelayso weli uu shaki iyo kaaga jiro ma aragtay humaag aad baan uga xumahay sababtoo ah qofna adiga maskaxaada waxaa ka guuxaya tiisa kuma shuli kartid laakiin waxaad xaq u leedahay inaad u sheegto oo keliya marka offerkaas walaal inta aan la gaarin end of the month oo saacada iyo wax kooban ay ka harsan yihiin ka faa'iidayso waxaa kale oo jiro in lagaa caawinayo haddii markaasi tool uuna kaarkaagu shaqaynayno kale in ay jirto system aan ugu talagalnay in walaalaha lagu caawiyo oo ah in ma aragtay aan walaalo u diyaarinay dhinaca kiribtada ka caawinaya oo runtii isxilqaan weyn muujiyeen marka haddii aad danaynayso guruubada keliya ayaad waxaad kusoo qoraysaa waxaan rabaa in la isiiyo informationka dadka iga caawinaya maxaa la yidhahaa kiribtada hadduu kaarkaaga kuu shaqaynayana waa free of charge isaga isticmaal marka hadduu kugu cuslaado kaarka oo aadan uusan kuu shaqaynaynin walaalkaas ayaad usoo dirsanaysaa lacagtaada u wareejisan kartaa weliba wadankii haddaad joogto markaad u wareejisatana cripto kaaga dhigaya kuu bedelaya dabcan lacag baa raacaysa oo criptada lagu soo sarrifayo marka si mutadawacnimaana wuu kuugu shaqaynaya marka haddaad rabto walaal ka faa'iidayso oo ma aragtay waxa la yidhaahdo bushin iyo qasab midna ma jiro feel free think about it haddaa opportunitygaas u aragtid in aad shirkaddan mustaqbal kale inaad ka noqoto xibinta aad ka soo noqotay inay ku dhawowdo oo maaragtay aad booskaas aad xajisato walaal maantaba ha ka daahin oo ma aragtay yuusan ku dhaafin fursad aad berri ka shalayda waxa kale oo muhiim jiddan ah ayadana oo updateka founder waxaa lasoo dhigay ilaa iyo 3 update oo kala duwan oo runtii dhammaantood wada muhiim ah oo ay tahay qofkii awoodaa inuu akhriyo oo ma aragtay hadday kasoo bilow updatekii hore oo sii oogeen arbacadii hore joogay hadday tahay maaragtay redfen markii uu sameeyeen waxaan loo yaqaano monday funday axsaasa adiga oo sundaydii ay qabteen oo christmaskii xaas laakiin wax badan oo muhiim ah oo runtii shirkadda ku saabsan markii fankani waxaan laga soo tago CEO-ga aad ayuu wuxuu uga hadlay connecti maxaa la yidhahdaa systemaadka caqabaad laftirkooda waxyaalo badan wax waaweyn oo soo socda 2024 qaybo ka mida marka haddii aadan waqti weli u helinin fadlan akhri oo ka faa'iidayso nowdadkaas haddii markaas aad reseller tahay oodan access u lahayna ka codso qofka founderka ah ee kusoo invite gareeyey inuu kuu soo diro nowdadkaas si aad u akhriso adigana sidoo kaleeto waxaa muhiim ah habeenkii xalay ahayd walaashan aamino qorane iyo aniga waxaan samaynay barnaamijka dhaxal reeb joogtada ahaa asbuuclaha ahaa qaybtiisii 3aad 2 qaybood oo horaa jirtay oo la duubay oo ma aragtay ku jira youtube-yada marka qaybtii 3aad ayaanu samaynay xalay oo runtii aan ku focus garaynaynay OES-ka qaabka loo isticmaalayo maxaa laga helayaa sidee yahay aad iyo aad buu ku anfacayaa barnaamijkaas dhaxal reeb in aad qaybtaas 3aad dhegaysato mideeda kale waxaan kugu dhiirigelinayaa in aad ka qayb noqoto ood walaashan aamino qorane dib ula soo xiriirto dabcan qaybo badan baa inoo dhiman oo barnaamijku wuxuu noqon doonaa mid asbuucla ah oo waxa weeyaan mar walba walaalaha lagu soo invite gareeyo lagagana faa'iidaysto barnaamijkaasi toole hadday tahay inaad fikirkaaga cabirto hadday tahay inaad aqoontaada soo bandhigto hadday tahay inaad maaragtay ombasif inta aad ka fahamsan tahay iyo inta aad ka garatay aad walaalahaaga la sheergaraysid hadday tahay laftirkaagaba inaad branding isku samayso sababtoo ah macnaha waa win situation okay in aad maaragta branding isku samayso oo maantay adiga dadku ku bartaan ay maaragtay ka faa'iidaystaan inaad maaragtay isticmaasho videoga markii la sameeyo videoga waa lagu siinayaa kadibna waxaad gashan kartaa barahaaga bulshada adiga oo linkigaaga ku lifaaqanaya waa haddii aad tahay qof soo jeeda qofna waa qof hurda oo waxa weeyaan aan markaa xiskiisu joogin qofna waa qof soo jeeda oo waxaan fahamsan iyo waxa ay tahay ganacsigan okay marka haddaad barnaamijkaas aad ganacsigaaga rabto inaad ku ballaarsato ama aad branding wax la yiraahdo aad ku samaysato ama aad aqoontaada iyo xirfadaada iyo
maaragtay intaad ombasif ka fahamsanta aad jecesha walaalahaaga inaad la wadaagto walaal wuu kuu furan yahay walaasha dib ula soo xiriir oo ka faa'iidaysa barnaamijkaas kolaba waxay samaynaysaa one by one ayay u samayn doontaa inay maaragtay qofkii kastaba 2 jeer 3 jeer ay soo casuunto inta uu asagu available yahay taasna waa barnaamijka dhaxal reeb iyo aamino qorane inaad ka faa'iidaysato haddii aad awoodo muhiim ma aha xitaa waxaa laga yaabaa inaad kaamirada ka cararayso xitaa waxaan recommend garayn lahaa haddii kaamirada aadan doonaynin xitaa kaamiradaada ku xiran ayaad soo gudbin kartaa maxaa la yidhahdaa fikradaada iyo waxa aad hayso biidni illahi tacaala saasaan rajaynayaa inaanan ku qaldamin arrinkaasna waan rajaynaya intaa markaa kasoo gudubno waxyaalaha 2024 aan ka expect garaynaynaa ombasif maxay tahay waa su-aasha runtii isweydiinta mudan dhammaanteena ay tahayna isweydiino ombasif waxaan ka malaynaynaa dhaqaale this is where we come from markii horeba qof kasta afkan ku hadlaya fahmaya soomaali ah wuxuu meeshaan u yimid waa dhaqaalo number 1 okay qofkii education rabaa wuu haystay kii rabay inuu maaragtay caanimo raba meelahaas u tegi is everything realityga waxa weeyaan qof walba wuxuu halkan u yimid in uu dhaqaale helo dadka kalena uu ku caawiyo sidai u heli lahaayeen wasaan aniga aaminsana okay qofka markuu asaga baahidiisa gudoomiyeen wuxuu dhihi jiray cabdi cali salaa khayr asiye ceejada marka nala ka fujiyo ya marka qof walba meesha wuxuu u yimid in asaga uu ma aragtay helo wixii uu kaga maarmi lahaa waxa uu maanta hayo sababtoo qofku hadduu ku faraxsan yahay meesha uu joogo qofna ma raadiyo horumar kale hadduu haysto asaga wuxuu hadda ku faraxsan yahay bal u fiirso maantay ombasif maalin ma soo gasheen mana webinara ma timaadeen ombasif ma saxiixdeen lacag ma gashateen waxba ma aadan samayseen to be honest haddaad ku faraxsan tahay meesha aad joogto qof kasta oo meel aadaya haddaad aragto ama meel soo gelaya meesha uu joogo uusan ku faraxsanayn wuxuu raadinayaa meel ka fiican okay waxaa laga yaabaa in dhaqaale haysato ganacsado tahay laakiin time consuming timeka kugu adag yahay ciriiri timeka kugu yahay dhaqaalihii qaabkaad ku samaynaysa qaab adag tahay inaad bini aadan maanta o dhan barido war xagga ka qabo maanta o dhan aad khayliso maxaa le dadka ganacsiyaasha physicalka haystaa aad bay inooga dhib badan yihiin midka shiidka aan waxba haysan asaa ka dhib badan why time consuming waqtigiibaa cararaya ya waxaa la yidhahdaa 5 haddaad isku hesho waxa weeyaan waa adduunka oo lagu dhammaystiray iyo aakhiradii waa haddii aad haysato waqti aad wax walba ku qaban karto oo waqtigii uusan cariiri kugu ahayn 2 inaad haysato baarbows aad leedahay ama waxaad raacadaynaysa ay jirto oo aad fishin leedahay oo maxaan see kugu tilmaama aad raacadaynayso wax aad rabto inaad xaqiijiso ya oo maaragtay aad hayso in aad haysato dhaqaale oo waxa weeyaan aad xoola haysato markaa dee lacag financial ad wixii kuu fududaynaya inaad haysato waxaa la yidhahdo location free inaad haysato oo waxa weeyaan aadan ku xirayn sababtoo shaqo physical haddaad haysatid oo dukaan halkan kaaga furan yahay dukaanka inaad joogtaad ku qasban tahay gobolku ka furan yahay tuuladu ka furan yahay meelaan ahayn ma aadi kartid laakiin haddaad digital business haysato ama ganacsi online ah waxaad aadi kadhaa meeshaad rabto sababtaa computerkaaga iyo mobilkaaga iyo waxaa dhan ku xiran yihiin maanta kumaanan rafaadnayn qurbe iyo kadeedkiis haddaynu haysano waxa markay isugu kaaya fadhido holiday waddankaa rabto cimradaada adoo iska gudanayaad laptopkaaga hawshaada ka wadanaysa cimraad iska gudanaysa maalinta kale holidayga waddankaad rabtaad joogtaa maxaa leedahay marka tan shanaadna waxa weeyaan wixii inay yihiin wax aakhiradaada kuu sabood garaynaya oon markaa xaaraani ku jirin oon markaa maxaa la yidhaha dad ku caawinayso ilaahay darti aad ugu shaqaynayso dad ka caawinayso sadaqa kala baxayso oo adduunkii iyo aakhiradiiba kuu kamilaya laakiin haddii aad maxaan cunaa maxaan cabbaa aad tahay ood naftaada keliya wax u raadinayso dee naftaada xitaa haddaad u dheregto ku qaboobi maysid sababtoo ah meeshii hadafkii saxda ahaabaa ka maqan marka isku day 5 arrimood haddaad haysato uma baahnid ombasif iska seexo haddaad lacag haysato time haysato free location macnaha free from location aad taa oodan meel ku xanibnayn
aad haysato ma aragtay waxaad raacadaynayso oo gool leedahay hadaf ku dhagan oo raacadaynayso gaari ka dhoo daba cararaysa ay jirto tan shanaadna aakhiradaada inay ku kabayso wax aad wada shanta haddaad isku haysato waad guulaysatay umana baahnid inaad wax kala doonto laakiin shanta haddaadan haysan waad ku qasbantahay inaad nagu soo biidho maadaama shantaas oo baasif aan ka xaqiijinayno inaad nala xaqiijiso kollaba waxyaalaha ugu muhiimsan marka 24ka waxyaalaha raacadaynayno taas waxay ahayd runtii fikir ay tahay shanta qodob inaad meel ku qorato oo ka faa'iidaysato laakiin waxyaalaha kale oon malaynayno waxa weeyaan ama expect garaynayno ama aan 2024 aan wajahayno data center in daatada ugu weyn on passive soo wado oo weliba 6 bilood dhexe macnaha 6 bilood ugu horeysa uma malaynayo laakiin ilaa June meelaha exactly waqti ma qaban karo laakiin waxaan ognahay in ballanqaadka aan haysano shantii bilar qofkii xasuusta 5 pillars of maxaa la yiraahdaa on passive in mid ka mid ah ay tahay maxaa la yiraahdaa data center ugu weyn adduunka maanta waxaa haysta shirkado yar saddex shirkadood ugu waaweyn habeen dhaweyd sidii Dr. Tariq I hope inaan magaciisa qaldaynin uu nala wadaagayay saddexda shirkadood ugu waaweyn midna UK ka dhisan tahay labana Mareykanka midda ugu yar muxuu yiri maxay samaysaa meeqa bilyan chat ku soo qora I hope inaad xasuusataan konobaga fiskay taala qofkii si fiican u aqrinaya insha Allah marka waxa kaleeto oo expect garaynayna oo 5 pillars of on passive kamid ah domain name magac annaga inoo qaas ah oo waxa weeyaan qof walbaahi hebel magac u qaasa oo shirkadda on passive uu ku maxaa la yiraahdaa kaga tirsan yahay laakiin on brandigiisa nafsa abdoon ahow aamino ahow abdi calasow ahow you name it magacaaga ayaa lagu siinayaa domain name kadibna waa lagu host garaynaya ama waa lagu maaragta haynaya af Soomaaliga I don't know hosting is just af Soomaaliga you know af Soomaaliga kuma qurxoona like I hope in a hayn something like that anyway waxa kaleeto oon expect garaynayna qof walba ee shirkadaas ka soo mid noqda subscribe garaysta platformyadeeda sababta qofka hadduusan active account uusan haysanin waxa aan soo sheegayo dhar xaq uma laha tamana faa'iideysan karo marka waxa laga yaabaa wax yar fikradaada oo aad u daciif inay ku jirto oo ah oo connecti iyo productyaashan yar waxaan yar waxa aad ka faa'iideysaa ma aha productyaashan yar kaliya data center ka faa'iideysaa domainka website-kaaga click meeqad ku samaynaysaa ma taqaana do you know soo search garee click waxa lagu helo website-ka bal soo arag adiga aan kaaga baahnayn creative aan kaaga baahnayn video gelin aan kaaga baahnayn shaqo aan kaaga baahnayn oo iswadaya asaga every single day qofku markuu website-kaaga click siiyo face cusub ugu tagaya picture cusub ugu tagaya product cusub ugu tagaya face cusub ugu tagaya this is where aan raacadaynayno faham meesha aan ka duulayno ma aha waxaan yar iyo productyaal iyo commission yar oo la hela iyo affiliate yar wax lagu hela iyo this is not wax ka weyn ayay on passive soo wada waana waxyaalaha annagana riixaya oon rabno inaan dadka walaalaheen ah aan ugu yeerno oo ay kaga faa'iideystaan on passive waxyaalaha kale oo weliba wiigaga ugu horeeya sanadka cusub aan rajaynayno waxa weeyaan bulk payout oo ah dhaqaala bixinta on passive oo 10 milyan oo ugu horeeya oo pendingka ku jira la fasaxaya marka ugu horeyso kadibna qof walbaahi dhaqaalaha markaas walletkiisa ugu jira de xoolaada lahayn lama baxaysid on passive-na charity maahan oo sadaqa ku siin mayse waxaad shaqaysato nin walba wuxuu shaqaysto ayuu ma aragtay la bixi doonaa marka bulky payout-ka qaybta kriptada ayaa ugu fudud oo maxaa la yiraahdaa xoog u shaqaynaysa laakiin paymentigina waa la xaliyay oo sidii CEO-gu noo sheegay company waxay heleen inta ay iyagu ka gaarayaan targetkoodii iyo maadaama on passive ay iyadu maarta banki u gooniye ay kaarar u gooniye iyo system u gooniye ay yeelan doonto haddana wada lagu gaaraa la rabaaye company ayay heleen ka caawiya arrinkaas oo waxa weeyaan inoo qabanaya shaqadii si degdega weliba wiiga ama labada wiiga ugu horeysa January ayaa bulky payout-ka ama dhaqaalaha bixinta on passive uu bilaabanaya yuu u bilaabanaya marka
ma u bilaabanayo qof maxaa la yidhaahdaa aan waxba subscribe garaysan waxba uma bilaabanayaan qof akoonkiisu uusan active ahayn waxba uma bilaabanayaan qof aan waxba haysan maxaa la yidhaahdaa isii maxay ahayd wuxuu dhihi jiray CEO-geena wuxuu dhihi jiray if you own it you can earn it macnaha haddaad wax leedahay ayaad wax ku helaysaa laakiin waxa xoolo aada lahayn oo dad leeyihiin de just sida idinku dhiirageliya waxaan iri maxaa la yidhahdaa nin islaameed dukaankiisa ayaad gaarka ka haysaa ood iska fiirsanaysaa maxaa soo kordhay talo ambasifty gurubadan aad ku jirtaaba is time consuming haddaadan waxba faa'iido ah kugu jirin oodan waxba ka expect garaynin oodan maxaa la yidhaha ka faa'iidaysanayn fursadda meesha taalla aw connectigaaga aadan iibsanin aadan cidaad ku invite garaynaysa aysan jirinin waxbana adiga aadan iibsan waxna aadan cid iibsato ku caawinin midna kama expect garaynayso on passive it's not charity it's business okay waa ganacsi marka ganacsina ciddii wax ku darsata ama investment samaysata ama wax iibsata ama wax maaragtay qaab kale ula shaqaysato maxaa la affiliate-ka ama ula shaqaysata ama ayada wax ka iibsato tira ii suuqgee this is the people expect garaynaya taas laakiin bulki bawdka ugu horeeya dadka bendingka lacagooda ay ku jireen ayaa marka hore la bixinayaa kadibna waxaa loo gudbayaa faceka labaad in January haddii ilaahay yidhaahdo kollaba intaas waxaa kaleeto ayadana muhiim ahayd I hope inaan habeenkii dhaweedna ku daray security payment security in la sameeyey iyo registration security labadaba securityga haddaan maxaa la dhahaa capture dabcan haddaa af soomaali isku soo aruuriyo waa wax nabadgelinaya ama ilaalinaya in aan tuugo kale iyo cid kale oo been ah aysan kaa faa'iidaysan okay linki baad ku dhufatay robodyo iyo balaayo kaloo waxaa lagu soo fasixi karaa beenahoo markaaba maarata meel kale ku jiita laakiin ombasif si ay u sugto nabadgelyadaada iyo safetyga dhaqaalahaaga iyo magacaaga iyo systemkaaga iyo informationkaaga ay u ilaaliso waxay kusoo dareen waxa la yidhaha capture ama alifa something numerous something I don't know how to pronounce it to be honest laakiin muhiimadda waxay tahay number ayaa lagu soo daray haddaad bixinaysid lacagta kow lambarkaas ayaad gelinaysaa meel box yar ku siinaya lambar yar oo isku qasqasan oo xarfa iyo lambara isku jira qaar waaweyn qaar yar yar yihiin weeye inaad human tahay ama bini aadan aad tahay ayaa la hubinayaa ood gacantaada ku qodho bes nambaradii baad gelinaysaa bottom yar oo blue oo hoosta wuxuu ku leeyahay samad aad dhahaysa ama dir marka bottomkaa ku dhufatid kadib ayaad haddaad form buuxinaysay ood qof cusub ood isregistraynaya tahana aad registrationkaaga samaysan kadhaa haddaad tahay qof oo connecti subscribe garaysanayay ama any platformna aad maaragta sii wadan kadhaa shaqadaada intaasaa walaalayaal rabaa inaan idinkugu soo gabagabeeyo updateka waxaan u malaynaya updateka so little inuu yahay laakiin